بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان أنجوكنا وعاوية أونلاين برنامج كان هذا مدرسنا هنا ودريالك مع ميش مناسبة إنك أنجوكنا وبشر رمضان بركيسن ساس درادد waxaan jecelnahay inaan kaga faa'iideysano barnaamij quseeya daryeelka macaamiisha muhiimadda aan siinana in aan barnaamijkan ku soo aadino xilliga ramadaanka waxay tahay maadaama ay tahay jaanis fursad aan kaga faa'iideysan karno in dad badan aan ku gaarsiino adeegeena daryeelka macaamiisha muhiimadda uu leeyahay waxay tahay maadaama waddankeena uu yahay waddan inta badan dadka ay business ku mashquulsan yihiin business kan wuxuu u baahan yahay sidiisaba inuu helo macaamiil haddaysan jirin businesska ma jiraayo waa sida ruuxdii oo kale haddiisan ruux ay jirka ku jirin qofka ma sii joogayo mana noolaan karo sidaas daraaddeed business kastaba waxaa muhiim ah inuu xooga saaro diiradda saaro macaamiisha macaamiil la'aanna businesska ma sii jirayo waayo waa ayaga dadka bixiya faa'iidada mushaarka shaqaalaha waa dadka sameeya faa'iidada uu helo company-ga sidaas daraaddeed waxaan soo xulnay mowduuc yar oo gaaban oo ku saabsan waxa loo yaqaan maxay ahayd tiirarka uu ku taagan yahay customer service-ka waxaan kaga hadli doonaa ilaa iyo 4 qodob oo ay ka mid tahay personalization oo ah qofkii dadka in la xiriiro si shakhsiyan loo la xiriiro oo lana sameeyo qaabab aad kula xiriiri karto macaamiishaada laba waa competence waa qofka ku adeegaya macaamiishaada daryeelaya waa inuu yahay qof ku haboon aqoonteeda leh inuu yahay waa qof aqoonteeda leh inuu yahay competence u leh oo fahmi kara macaamiisha adeegina ka gadi kara competence marka leena waa inuu qofka aqoon u leeyahay wuxuu asaga gadayo macaamiishana inuu ka qanci karo confidence ayadan waa muhiim waxayna muhiim u tahay in wadada ugu haboon oo lagu gaarsiin karo macaamiishaada adeegaaga inaad heli karto mid saddexaadna waa proactive oo ah inaad tahay qof firfircoon oo waxyaabaha intaysan dhicin ka hor dadka gaarsiin karo for example haddii cilad jirto intaysan ciladaasi maaragtay dadka ogaan hortood inaad ka raali geliso oo dhahdo maadaama adeegeen maanta uu soo daahayo waa idinka raali gelinaynaa waxaa jira ciladaas aan qabsatay si macaamiishaada hadhow aysan maaragtay aysan ugu dhicin maaragtay niyad jab oo adiga aad ka hor tagto inaysan niyad jabkaas ku dhicin sidaas daraaddeed cashirkeena asagoo faahfaahsanna hadda aan soo bixin doonaa